waa maalin xusuus mudan dhanka kalena ay ku ladhan tahay mugdi waa 26 Juun 1960 waa maalinta ay xorriyadda qaateen gobollada waqooyi 4 cisho kadib 1 Luulyo gobolladii waqooyi waxay la midoobeen koonfurta Soomaaliya oo xorriyadda qaadatay 1 Luulyo 1960 iyagoo iska dulqaaday gumeystihii Talyaaniga 1960 Juun waxaa beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa laga taagay calankii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed waxaana maalinta diilo iyo gabayo ku soo dhaweeyay guud ahaanba suugaanyahanadii Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Abwaantima Cadde waxaana gabayadu halkaasi ka tiriyay ka mid ahaa ka nasiib ka nasaar balse midowgaasi ma waarin oo gobolladii waqooyi waxay la kulmeen dhibaatooyin badan oo aan weli xal loo helin muddo kadib gobolladii waqooyi waxay ku dhawaaqeen goon isku taag waxaanay go'aansadeen 18 May 1991 inay ka go'aan Soomaaliya inteeda kale gobollada waqooyi hadda waxa la yiraahdaa Somaliland waxay samaysteen nidaam maamul iyo kala dambeyn waxaanay hadda rajeynayaan inay noqdaan mid ka mid ah wadamada ku yaala Geeska Afrika balse weli ma haystaan aqoonsi caalami ah oo ay ka helaan guud ahaanba caalamka magacaygu waa Khalid Cali